ما ogtahay in 1.9 milyan oo qof maanta ay kansar la dhiban yihiin dabcan WHO ama World Health Organization yaa soo baahisay ogow 2 daqiiqo walba oo ku soo marta qof baa waxa looga shakisan yahay ama lagu diagnose gareena inuu cudurkaas kansarka ah qabo 20 sano ka hor hadii lagu dhihi lahaa qof qaraabadaada ah ama qof hebel baa kansar haya waxa macquul ah inaad madaxa qabsato oo aad isweydiiso ayaa soo habaaray intuu ka yimid xanuunkan maxaa ku riday laakiin maanta xanuunkii wuxuu noqonayaa wax caado ah dadkuna ay ayagu gacantooda ku raadsanayaan dabcan videogan aan kugu tusin doono waxyaabo aad adigu ku dhex jirto oo ku keeni kara xanuunka kansarka inuu ku soo doonto السلام عليكم marka hore kansarku wuxuu ka mid yahay xanuunada maanta aan ilaa hadda la garan karin sababta saxda ah ee ka dambayso iyo waxa keeno laakiin daraasado la sameeyay waxa la ogaaday waxyaabaha qaar oo ay dadku sameeyaan inay keeni karto unugaas ama selkaas kansarka in ay si xawaare ah u koriyaan dabcan hadii aad maqashay sigaarka qofka cala inta badan dhibaato kansar ah ayaa looga baqayaa ama hadaad maqli jirtay sigaarku kansar uu keena hadda waxa la ogaaday cuntooyinka aan cunno qaasatan miisaanka culus dadka uu saaran yahay jirkoodana uu ku badan yahay faatka qaasatan midka loo yaqaano visceral faatka waa faatka gudaha gala ee inta badan xubnaha waaweyn ee jirka isku hareeya in ay xiriir la leeyihiin korshiimaha ama kor u qaadista unuga kansarka waxaad ogaataa maanta hadii uu miisaanku saaran yahay ama culeys aad dareemayso qaasatan body fatkaaga ama fat percentage jirkaagana uu ka badan yahay 40% cudurka ilaaha haya ilaahay subhanahu wa ta'ala adduunkan controla laakiin waxa ogaataa sida daraasaadka lagu ogaaday ama baaritaanada lagu soo hubiyay in aad halis ugu jirto xanuun walba oo chronic ah haday noqon lahayd diabetic uu macaan kugu dhici lahaa haday noqon lahayd dhiigkar oo blood pressure ah iyo haday noqon lahayd cholesterol ama xididada dhiigaagu iswada xira wadnahana ay dhiiga si fiican ugu shaqeyn waayo waxaad ogaataa xanuunada adduunka maanta mid hadii uu ku soo wajaho waxaad ogaataa hadii aadan ka taxadarin midka kaleete wuu daba socdaa waana aragtaan inta badan qof hadii lagu dhaho macaan uu qaba cholesterol kama fogo blood pressure qaba hadii lagu dhahana macaanka qarku u koraa qodobkan kaleete insulinka waxaad ogaataa insulinku waa hormoon aad muhiim u ah qaasatan marka ay imaato qaabka jirkeena oo uu shaqeeyo ama dheefshiidkaba ogow insulinku shaqadiisu waa in dhiigga sokorta soo galaysa uu ka xakameeyo in uu unugyada jirka waraabiyo iyo wuxuu qabtaa hawlo tiro badan waliba muhiim ah jirkaagana la'aantiisa uusan qaban karin hadii ay dhibaato ku timaado insulinkaagana ay keenayso in lagu raadiyo xitaa insulin banaanka in laga siiyo si hawsha gudaha ka socoto ay u sii socoto laakiin insulinku hadii ama waqti wuxuu gaaraa resistance la dhaho hadii meeshaas uu gaarana uu keeni karo xanuun walbo in uu jirkaaga xambaaro maanta baaritaanada adduunka dhan istaadiyada la sameeyo dhan waxa la ogaaday insulin resistance-ga in cudur walba asiga uu hooy u yahay insulin resistance-gu waa jirkaaga oo ay ku badatay sokorta ama oo ay ku badatay cunooyinkan hadda anagu aan zaidka u isticmaalno ee jankiga ah qashinka ah saliida qaldan lagu dubo burka ka samaysan oo jirka maanta dhan lagu shubo taasoo keeni karaysa in jirkaaga uu aad u daalo qaasatan insulinkaaga uu daalo uu jirkana ku bato unugyada jirkaagana ay iridaha ka xirtaan ay diidaan in cuntadii ama wixii dhiiga dhex sabaaxayay gudahooda lagu shubo heerkaas mar haduu gaarana insulinka wuxuu sameeyaa in fatigue uu dareemo amaba la waayaba kadibna ay noqoto qofkii in la dhaho macaan uu qabaa maadaama uusan insulinkiisa shaqeynaynin kadibna cirbada insulinka ay caado u noqoto sidoo kale tana aad buu xiriir u leeyahay hormoonkan oo positionkiisa la dhaafsiyo in uu koriyo ama kobciyo unugan hadda aan ka hadlayna selliska kansarka maxaan kaga hortagi karnaa marka tan koowaad waxaad ogaataan sidaan hore idinkugu sheegay cudurku ma ahan horta cudur si buuxda ah loo baaray ama cudur si buuxda loo ogaan karo waxa keeni kara iyo sida tooska ah looga hortagi karo laakiin sidaan haddaba idinkugu sheegay kuwan in lagu ogaaday baaritaano in lagu ogaaday soonka qofkii inuu soomaa soonku dhowr nooc leeyahay ama qaabkaad maalinkii wax u cunayso intermittent fasting oo ah 16 saacadood inaad soonaato sidoo kale tana aad 8 saacadood wax cunto ama waa inaad sameeyso 1 meal a day waxaan ay dhahan oo aad maalinkii
habeenkii hal mar aad wax cunto ta kalena calooshaada aad firaaqa siiso fasaxdo jaanisna ay u hesho in ay hawsheedii kaleete ay qabsato waxaan ogaataan inta badan dhadhamisku markaan ku leeyahay dad moodo in digsiga la kor taagnaado oo maanta oo dhan afka wax lagu shubo maya taa kama wado dhadhamis markaan ku leeyahay waxaan ka wadaa in aad maanta oo dhan koob shaaha aad cabto maanta oo dhan koob kafee aad cabto insulinka halisi ku tahay ogowna in jirkaaga uu isbedel sameeyo sidoo kale process waxaa jira aad muhiim u ah oo maqaarkaaga wax badan ka bedeli lahaa laakiin hadda uusan awood u heenin magaciisana la dhaho autophagy waa isbedel jirkaaga inta badan uu sameeyo laakiin waa goormee waa marka cuntada ay dheefshiidku ka maqan tahay waa marka uusan dheefshiidkaaga zaa'idku u shaqeynaynin in waxyaabihii jirkaaga ku jiro proteinadii daxalaystay ama miriray inuu bedelo kuwa cusubna uu u rogo inta badan taas waxay aad u caawinaysaa xataa isbedelka maqaarkaaga ku dhacaya soo marka waxaan rabaa inaan ku dhaho soonka waa waxa ugu muhiimsan maanta caafimaadka noloshoo dhan aad ku xakameyn karto luqmatu subax walow kaana xajar haddii aad maqli jirtay sheekada waa la iskaaga daba yimid hadda waxaa jirto laba waqti inaad wax cunto ama hal waqti inaad wax cunto caafimaadka wax ugaga muhiimsan ma lahan labo jimicso inaad exercise garayso inaad wax uun samayso oo dhaqdhaqaaq ah jirkaagana calories ka gubi karo aad bay muhiim kugu tahay waxa ogaataa maanta waxaa la ogaaday 90 jirada 70 jirada waqtigoodii markay yaraayeen jimicsiga ku soo qaatay inay boqolkiiba 85 ay ka badbaadeen in ay kursi ku aruuraan amaba patient ay u noqdaan isbitaal oo ilaa hadda howlahooda ama noloshooda maalmeedka ayaga ay lugahooda ku qabsanayaan intaas rabo inaan idin la qaybsado haddii aad inta ay la soo gaartay videogana aad ku qanacday dabcan waxaan rajeynayaa inaan barnaamijkan fitnesska iyo caafimaadka aad u xiiseynayso halkaana intaasan kaga hadalnaa soo dhawow subscribe channelka beelka taawo haddii aad awoodo walaalka ku sabriye assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh